السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر لماذا كورسدين جرافيك ديزاين كأيام كبرني سوفتوير كأدوبي فوتوشوب ما أنتوا حنقادن دونا layers كوحكم دي هاي واقعها أقوم سن مركات ربط جرافيك ديزاين كإناد برضو واقعها أقوم سن إلى الربا إناد مانج جرين كرتد وأتفهم كرتد layers كفوتوشوب كوحكم دي هاي قيبت باناليس كليرادو هراء صوشر إحنا باناليس وحيهين layers كماشاas oo kaaga muuqanaya hadii lacala meesha ay ka weysid waxa taabanaysa windows kadibna waxa ku dhufanaysa layers hadda marka hore wuu noo muuqday hadda ayaan qariyay waxa ku dhufanaysa mar labaad windows kadibna waxa taabanaysa meesha ay ku qoran tahay layers calaamada tigta marka ay fuushana oo ku soo muuqan doona shortcut aan waxa taaban kartaa F7 waa kana layers ka dhankaan ay ka soo muuqdeen layers ka sidee magac uga bedelan kartaa tusaalahan kan oo kale hadda aad inaad magac ka bedesho laba mar klik siinaysaa layer ka hadda ii dooran waa midkan intana waa ka dooran kartaa sidoo kale sawirka mid kamid ah layerada meesha kaaga muuqda mid kamid ah hadii aad click siisidna waxa ku select gareysmay layerka waxa noo fududeeyna wax kale ma ahan calaamadaas out select ay ku qoran tahay ayaa check noo saaran hadii aan kan ka qaadno hadii aad ku dhufatid iyo hadii aad ku dhufaninba waxa qasab ah inaad si caadi ah inta kaga doorato sadarteed waxa fiican mar walba out select inuu check ku saaran yahay si automatic ah si lagu geey kan gadaal hadii aan rabo hadda kaliya ayaan siinaya background kan inkastoo uu xiran yahay ma doormaya asaga logo ku jiro quful ku jiro hadii qufulka aan ka bixiyo kaliya aan sii kara markaas oo select gareysmaya kan hadii aan doono kan ku dhufanaysa hadii aad doonto mid kan ku dhufanay mid alaala midka aad doontid ayaa click siinaysa isaga ayaa ku select gareysmi doon sidee magac looga bedelaa layerka laba mar aad click siinaysa kadibna magacii aad doonto aad ku bedelaysaa okay kan hadii aan rabo inaan ka bedelo isagana waxaan ku dhufanaysaa laba mar click kadibna magaca ayaa loo bixaysaa sidaas magac looga bedelaa hadii aan rabo ka waran layerka inaan badiyo oo duplicate ama copy aan ka sameeyo aan rabo laba option midkood waa soo bi kartaa inaad soo jiidid kadibna aad ku dhufato calaamadan plus-ka ah ee kaaga muuqato dhankaas midigta hoose kadibna waxa aragtaa laptop copy in lagaaga sameeyay oo isdul saaran yahay oo soo jiidaysa dhinaca soo siki waa kaas waxa kala soo bi kartaa Ctrl+J ayaa taabanaysa keyboardka kadibna laba ayuu ku noqonaa hadana layerkan waxaan ka dhigay copy ka sameeyay sidoo kale layers waxa ku sameyn kartaa inaad shape oo kale aad abuurto click aad ku siisid shapeskan kadibna aad jiidid shape-kaas wuxuu ku noqday isagana layer kale oo madax banaan waxa ku qoran rectangle 1 okay sida ku muuqata layerskan hadda way isdul saaran yihiin hadii aan rabo ka waran laptopka inaan kor soo mariyo oo kana gadaal aan mariyo waxa sameynaysaa click aad ku siinay laptopka kadibna waa jiidaysaa waxa geynaysaa qaybta u koreyso hadii isaga aad rabtid saasoo kale saa qabanaysaa kor geeni shape-kan oo kale hadda ayaga dhan uu ka wada hooseeyaa waa u kormari kartaa hadii hoos inaad soo celiso aragtidna waa soo jiidaysaa meesha arta geeni shortcut uu leeyahay isagana waxa taabanaysaa calaamadaas square bracket-ka iyo control as la taabanaysaa hadda shape-ka meesha ugu hooseeyaan geeyay hadana square bracket-ka laba calaamad waa midna waa open midna waa close tan open-ka hoos ay ku geenaysaa close tan close-kan waxay ku geenaysaa qaybta kore control qabo calaamada square bracket-ka waxay ku xigtaa xarafka B ay ku xigtaa O P labada calaamadooda ku xigaan okay sidaas shortcut ahaana waa u sameyn kartaa oo layerska orderska qaabka u kala horeeyaan taas oo kala kormarinaysa waxa kale sameyn kartaa layerka feasibility-giisa qari kartaa hadii layerkan uu noo muuqdo soo ma shape calaamad yar oo meeshaan jirto oo loo yaqaano indicates waxa ku tilmaamaysaa calaamadaas layer feasibility marka click si shape-kii hadda ma la tirtirin laakiin waa lagu qariyay hadana kan kale hadii aan rabo inaan qariyo calaamadaas aan taabanaya hadii aan soo bixiyo aan rabo sidoo kale mar labaad ku celinaa calaamadii okay hadii aan rabo ka waran inaan tiro midkan keyboardka buttonka delete waa taaban kartaa asoo ku select garaysan iska ilaali shay kale asoo ku dooran hadii aad taabato kan kale dooran aad tirmi doono hadda kan aan taabanayna kadibna delete okay meesha wuu ka baxay laptopka aan rabaa inaan tiro anoo keyboardka aan taaban waa tiri karaa waxa sameyn kartaa waa soo jiidaysaa kadibna calaamada delete-ka ah oo ku taalo dhankaas midigta hoose ayaa ku sii deynaysaa isagana sidaas ayuu ku baxaa
okay haddii ka waran hal group inaan ka dhiga aan rabo labadan waxaan rabaa inaan group geliyo control qabo isla dooro labadooda layerka koowaad ku dooran control adoo haayo layerka labaad ku dhuf kadibna waxaa taabataa create new group waa buttonkaas ama calaamadaas hoos kaaga muuqato shortcut ahaan control plus G ayaa taaban kartaa hadda waxaa la suubiyey group 1 haddii isha aan ka qaado hal mar ay wada qarsoomaha hal mar aan soo wada bixinaa magacaan ka wada bedeli karaa macnaha groupka ayaa magac ka bedeli karaa haddii aan doono waxaa rabtida ula bixaysaa group waa af Soomaaliyan ka dhig okay waxaan u maleynayaa marka in badan oo layerska kamid ah waa la fahmay casharkeena halkaas ayaan maanta ku joojinaynaa fadlan channelka haddii aad ku cusub tahay subscribe saar asxaabtaadana la wadaagtay uga faa'iideystaan videoga haddii aad ka heshayna calaamada like taabo aad u mahadsantiin